laacibka Maxamed Aalta ayaa wada xaajood ku dhow inuu guuleysto kula jira xidigta Raxma Rosa si ay bedel wanaagsan ugu noqoto laacibada Hodan Cabdiraxmaan taas oo caageeda ka biyeysatay gigida Aalta Stadium xidigtan 190 kiilo ayaana lagu heli karaa qiimo macquul ah inkastoo ay aad u yartahay rajada ah inay kula guuleysato tartan heer caalami ah daada laacibadan oo aad u yar sareysa dadka dhaliila Aalta ayaana ku micnaya dalabkaasi fajaca mid uu isku hilmaamsiinayo xidigtiisii nambarka 10aad ee Hodan Cabdiraxmaan taasoo haatan xiran maaliyada uu caanka ku yahay Mursal Muuse dhanka kalena laacibada Qadar Slim oo aad uga careysan kursiga keedka ayaa ku kalsoon helida xidiga aan kooxna u diiwaan gashneen Cabdicasiis Kalaaji xidigtan loo xulan waayay kooxda heerka koowaad ayaana diyaar u ah inay dhinto mushaarkeeda iyadoona beeca horta ah kula midoobi karta laacibkan aan habeenkii xitaa dhigan oo kiyaalihiisa Hargeysa Times ayaana fahamsan in xidigtan ku wareersan sababta loo cidleeyay ee carad daraadeed gorgorinaysa halyay walba oo u ballan qaadi kara booskeeda joogtada ah qodobka toddobaad ee FIFA ayaana qaba in dib loo eegi karo heshiis walba oo xanaaq lagu saxiixo taas oo fursad siinaysa xidigtan iyo sidoo kale Aalta oo labaduba saxiixa heshiisi ay ku cilbaxayaan xidigtani macadreen ayaa heshiis rasmi ah la gaartay laacibka Axmed Wali Furle sida ay qabtay Jigjiga Football laacibka Furle ayaa dhowr jeer kula alabitay xerada tababarka xidigtan uu qoodiya Cabdiilay inta lagu guda jiray bilowgooda xaajoodka laacibkan aan saameynta badan ku lahayn kooxdiisa xidigaha geedka ayaana iska fasaqay heshiis muddo dheer oo kula jiray laacibadiisa da'da yar ee Asmalof markii ay iska diiday in bedel loo isticmaalo xilliyada dhaawaca ama ganaaxa ku maqan tahay xidigta saxaafada loo soo bandhigay haatan ee macadreen